gudoomiyaha golaha shacabka gudoomiye ku-xigeenada dhammaan xubnaha baarlamaanka wasiirka wasaaradda gaashaandhigga bahda saxaafadda iyo guud ahaan marka sharafta kale waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh salaan kadib runtii aad iyo aadaan idinkugu mahad celinayaa waqtigan aad na siiseen naguna weydiinaysaan muxuu ahaa ii sheege su-aalaha waxaan rabaa markaa inaan ku soo koobo inta markaa aan is leeyahay runtii way kaa qusaysaa oo way kaa taabanaysaa ka taliya ahaan waxaan rabaa inaan ku hormaro su-aalihii ahaa xildhibaan odowa wasiirkii hore arrimaha gudaha oo ahaa afar su-aalood oo su-aasha koobaad aheeday ciidanka gorgor ee la geeyey meesha la yidhaahdo maxay ahayd ii sheege dhuusamareeb galmudug ciidanka gorgor waa ciidan ka mid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa qayb ka mid ah ciidamada danab loo soo tababaray sida gaarka ah waxayna ka mid yihiin waajibkan ay xildhibaane adoo mahadsan inaan dhameeyo iyo ogolo sababtoo ah xildhibaanada waxaan ka codsanaynaa markay hadlayaan ay ka jawaabayaan wasiirka iyo taliyaha loo daayo annaga hala la weydiiyo haddii ay wax ka jawaabi waayaan laakiin adiga kaa intarka xildhibaan adoo mahadsan aad iyo aad kugu mahad celina laakiin waxaan rabaa inaan adoo iga raalliya inaan kuu sheego su-aasha muxuu ahaa ii sheege saddexaad iyo su-aasha koobaad ayaa iska hor imaanaya saasaan ugu soo celiyey mar waxaad na weydiisay su-aal ah deegaanada galmudug maxaa looga sameylaya howlgallo marna waxaad na weydiisay maxaa ciidanka loo geeyey haddii aan ciidan la geyn marka yaa howlgalka ka samaynaya sababta aan ugu soo celiyey xildhibaankayga qaaliga ah horta waa sababtaas marka sida aad la socotaan deegaanada galmudug waxaa ka socday muxuu ahaa ii sheege abaabul waxaa ka socday muxuu ahaa ii sheege aruurin in ciidamo badan lagu tababaray sida aad la socotaan dugsigii harqaboobe waxaa ka socda sidaada ayada xanan buuro in sidoo kale ciidan lagu tababaraayey waxaa sidaas oo kale ciidankii lagu tababaraayey beledweyne ee ka mid ahaa qaybta 7-labaatanaad ayagana loo wareejiyey qaybta 1-labaatanaad oo lagu daray ciidanka ku jira harqaboobe ciidanka gorgor ee la geeyana kuwaasay horta waajibka la wadaagaan taas waa taas marka waxaan isleeyahay wax muxuu ahaa ii sheegay hadda gaara ama issue gaara inay taa uma malaynayo waxa ay fulinayaanna waa waajib iyo tilmaamaha muxuu ahaa ii sheegay madaxda qaranka oo adinku ka mid yihiin wax ka gaar oo ayagu ay fuli karaan inay jirtaan uma malaynayo taas arrinta labaad ee heeday howlgallada ka socda shabeellaha hoose ciidanka halkaa la geeyay ma aysan saamayn annagaa muxuu ahaa ii sheegay hogaaminaynay haddana annaga ayaa joogna marka ciidamadu sida aad la socotaan howlgalladoodu waxay ku salaysan yihiin marxaladda markaa jirta iyo xaaladda markaas taagan gobolka shabeellaha hoose labada shabeellaba iyo jubbooyinka qaybo ka midaba sida aad la socotaan waa dhul carro madow ah waxaa lagu jiraa xilli roobaadkii howlgalladeennii socda waxaa hakad geliyey cimilada lagu jiro xilli roobaadkiyaa lagu jira taas ayaa hakad gelisay ayadana muxuu ahaa ii sheegay sidoo kale gaabisna ma gelin ee meelo kale oo dalka ka mid ah ayay howlgallo ka socdaan ayadana waa u diyaargaroobaynaa cimiladu markay noo saamaxdaan howlgalkaas meeshiisa uu kusii socodaya ilaahay idinkiisa ayadoo sidii iyo si ka wanaagsan ah arrinta ah muxuu ahaa ii sheegay su-aasha saddexaad oo aheeday deegaanada galmudug maxaa shabaab looga xuray laaya ama maxaa muxuu ahaa ii sheegay howlgallo looga geli laaya xildhibaankayga qaaliga ah diyaargarow weeriyaan ku jirnaa markhaatina waxaa ka ah waxa aan hadda ka wadno waxaan rajaynaa ilaahay idankiis mar dhow marka howlahaasoo dhan ay noo dhammaadaan inay muxuu ahaa ii sheegay ayaduna ay dhici doonto waxaa ugu dambaysay arrin aheeday xoogaga waxaan isleeyahay taas wasiirkaa ka jawaabay wax hadda gaar oo aniga ay qusay ma ahan waxaa ku xigay xildhibaan saabir oo ahaa istaafyada su-aasha koobaad arrinta istaafyada waxaa dhowr mar lagu soo celceliyey amarka yaa bixiyey amarka horta waxaa bixisay xaaladda dhacday
xaaladda dhacday amarka bixisay xildhibaanadayda qaaliga ah waxaan ka fikirayno waa amniga dalka waxaan ka fikirayno waa amniga madaxda qaranka ee adunku aad tihiin sharci dejinta ugu saraysay waxaan dhahay ilaalayaashiini waxaan bannaanka u taaganahan waa adinka askariga jidka taagan ee laamiga roga habeen iyo maalin waxa uu taagan yahay waa adinka qalad marka shaqo lagu jiro boqolkiiba boqol wax walba saxay noqonaya lama dhihi karo way imaa karaan dhaliil way imaa kartaa qaladaad laakiin waxaa muhiima sida lagu sixi lahaa in la fiiriyo arrinta ayada ah waxaad la socotaan iridka kashmiir SYL area SYL waa dhacdadii shanaad ama lixaad oo ka dhacaysa laba dhacdooyinkaas ka miduhu waxay ku dhaceen sida hadda dhacdada ugu dambaysa ay ku dhacday dad isu soo ekaysiiyey ciidamada amniga oo lugaynaya oo aakhirkii ay sababtay inay hoteeladii ay gudaha u galaan sidaas daraaddeed waxaa timiday waa la kala gara waayey su'aal kale oo soo socotay noqon doontaa oo aheeday sababta ay meeshaas u yimideen maxay tahay sababta ay meeshaas u yimideen waxay aheeday ciidamadii istaafyada ahaa marka ay soo dhaafaan jagboyntiyadii madaxtooyada waxay imaanayaan iridka dhammaan halkaasaa lagu dejina isma garanayaan colal kala duwan ay ka tirsan yihiin qofka soo dhex galana lama garan karo askarigii ilaalada ahaa ee ama jooga tiyaatarka ama jooga ceelgaab ama jooga sayidkana ma jooji kariyo askariga lugaynaya sababtoo ah 300 askari 400 askariya gadaashiisa fadhiisa marka ma istaafyadii la socdo madaxda qaranka ma shabaaba oo ma midkii cadowga ahaa ee ummadda inuu dhibaateeyo doonayaan taas ayaa horta muxuu ahaa ii sheegay keentay iyo baaristii dhacdada oo weli socota in la yiraahdo jagboyntiyada ugu horeeya meelaha madaxtooyada laga soo gelaayo ha lagu hakiyo istaafyada ilaa amar dambe taas ayaa muxuu ahaa ii sheegay amarka horta sidaas uu ku baxyay sidaas oo ahaa waxaan rabaa marka iyada laba inaan u kala qaado xildhibaanada sharafta leh iyo madaxda muxuu ahaa ii sheegay kala guud ahaan iyo ummadda kale oo Soomaaliyeed oo socotaba qofuna waa qof gudbaayo wadada isticmaalaya oo toos u gudbaaya oo in ka soo gala tiyaatarka sayidka ka baxay ama in ka soo gala tiyaatarka ka gudbaaya ceelgaab qofkaas mas'uuliyadda uu doonayo haayo istaafkiisu ma laga dejinayo gaarigan uu la gudbaa amarkaasna waa ka bixin cidda istaafka laga reebayo waxa waayo qofka in kala soo gala tiyaatarka marka uu yimaado area SY ama jagboyntiyadii madaxtooyada uu ka soo gudbo doonaya dhaxdan inuu istaafku ku dejiyo oo gudaha soo galay ama xarunta baarlamaanka soo aadiyo ama xafiisyada kale oo muxuu ay sheegay dawladda ha aadiyo arrinta kale oo ayadana sidaas oo kale ayadana aan amarka ka bixinay rijaynayna ayaduna inay fusho dhaliilo way ka imaan karaan waana saxayna waa dadka madaxda ah ama xildhibaan ha noqdo ama mas'uuliyad kale ha haayo oo gudaha xayndaabka degan ayagana sidaas oo kale istaafyada hore inay la soo gudbaan maadaama guriyahooda gudaha ku yaalin taas marka waxaan isleeyahay taasan aydan ugu gudbayaa arrinta Eritrea ciidan loo qaaday anigu kulay ma garanayo tay wasiirkuna meel kale wada ciidan ka keenayo ma aysan jirin Eritrea ciidan loo qaaday xoogga dalka Soomaaliyeed anigu kulay ma ogi taas waxaan isleeyahay xildhibaano kale oo waxa jiray ku soo celiyay mudane gudoomiye su'aasha aheeday istaafyada jawaabta aan u haynana taas waay waxaan isleeyahay marka dhamaanteer inay sidaas nooga dhamaataan aan ridayna arrinta istaafyada xildhibaankaas su'aal ii heestaa xildhibaane waxaan rabaa waa mahadsantahay aad u mahadsantahay xaaladda marka aan ku leeyahay amar marka la bixinayo sideedaba wuxuu ku yimaadaa markaas marxalad taagan oo sababta amar in la bixiyo inay jirto taasaa keenta amarku inuu baxo anaa bixiyaha waxaan rabaa xildhibaankayga qaaliga ah xildhibaan waa kuu soo socdaa kama tegi xildhibaan mahad salaad wuxuuna weydiiyey su'aal heeday muxuu ahaa ii sheeg istaafyada ayada taas waxaan isleeyahay meeshaas istaafyada inooga baxday wuxuu kaloo weydiiyey su'aal heeday gado gobolka gado ciidamada Ethiopian oo soo galay waxaan u malaynayaa horta
waagii dagaaladii meelahan ka socdeena waxaan sheeko ku maqlay nin Etoobiyaan ah loo yimid qoladii dagaalada waday marka waxa la yiri dadka shacabkii iyo kuwa kale waa isku darteen kuwa dagaalamay marka wuxuu yiri laba Soomaali ma kala garan karo waxaan rabaa horta golaha shacabka dalkan waxa ku sugan ciidamo amisom Etoobiyana qayb ay ka tahay marka askariga Etoobiyaanka ee geeda socda waxaan u maleeyaa in sharciyada ay ku yimideen waxay ku yimideen sharciyad baarlamaanku ansixiyay ku yimideen waxaan rabaa waa soo socda xildhibaankayga laakiin waxaad xisaabta ku darsataan mar hadduu joogo Etoobiyaankii kale anigu laba tuuta kala garama karo isla Etoobiyaan islaam marka runtii waxaan isku daynay ama si dhow aan ula soconaa dhammaan gaboodfallada ku dhacaya ummadda Soomaaliyeed oo ay geysanayaan ciidamada nabad ilaalinta ku jooga oo gobollo kala duwan ka geysanaya kaligood ma ahan waxaad la socotaan gobolka Gedo iyo xuduudda Kenya arrimaha in badan ba ka socday oo xitaa saameeyay ganacsigii waddanka qaybo ka mid ah saameeyay la socotaan meeshaas kaligeena ma aha waxaan isleeyahay marka gaboodfalladaas dhacaya waa mid guud ahaan qaranka oo xildhibaanadu ay yihiin hay'adii ugu sareysay u taalo qusaysana maxaan isleeyahay marka inaan si hoos in loo fiiriyo si hoos in loo fiiriyo u baahantaan isleeyahay waxaan rabaa inaan u gudbo arrintii ceel saliini xildhibaankayga qaaliga ah uu weydiiyey waa sax ceel saliini xildhibaankaygu wuxuu yiri saraakiishii joogtay ma waxay mudnaayeen in la abaal mariyo mase waxay mudnaayeen in xabsiga la geeyo waxaan rabaa horta qof walba oo dalkan mas'uuliyadu ka saaran tahay taytalkay joogto ha ka joogto waxay xaq u leedahay in lala xisaabtamo sida adiguba noola xisaabtamaysaan hadda halkaan noogu yeerteen oo saaka idin soo istaagay amarkiina la'aantiisna aanan kaana ka bixi karin waxaan rabaa marka ceel saliini ciidanka markuu meel joogo wuxuu ku xisaabtamaa awoodiisa iyo waxa meesha yaala ciidanka aad meesha geysay hubka aad meesha geysay iyo waqtiga aad ugu tala gashay nidaamka difaacooda iyo waqtiga aad ugu tala gashay inay isdifaacaan haddii marka qorshihii la dejiyey oo difaaca laga dejiyey si aan waafaqsanayn ay wax u dhacaan waxaa qasaba in la helo cidda dhalisha iskale iyo sababihii keen sidaas darteed xildhibaankayga qaaliga ah meeshaas waxaan geynay ciidan ku filan oo aan isleenahay runtii aan difaaciisa ugu tala galnay waxaan geynay hub ku filan oo isleenahay muxuu ahay ii sheegay waqtiga loogu tala galay ay isku gaarsiin karaan ciidamada intooda kale meeshaas marka waxa ka yimid dhaliil taas ayaana waxay keentay in saraakiishii meesha mas'uulka ka aheeday lala xisaabtamo xabsigana la geeyo hadday dambi yeeshaan muxuu ahay ii sheegay eedeymaha loo soo jeediyaa ay yeeshaan sharcigu waxbuu ka qabana haddii ay yeelo waayaan waxay xaq u leeyihiin inay xurriyadoodii helaan shaqadoodiina ay dib ugu soo noqdaan wayna dhacaysaa ilaahay idinkiis mana filaayo sabab aan maantay mas'uuliyadda la saaran anugu takrifalno oo cadaalad darro ay ugu dhacdo inay jiri karto ma u malaynayo marka ayadana sidaasay muxuu ay sheegay aheeday waxaa sidoo kale ayadana ku jira hiil weyne waxaan rabaa hiil weyne inaan idin caddeeyo xildhibaanadayda qaaliga horta waxaan aad u jeclaa lahay guddoomiye iga raalli noqo yaan la igu qabsan waa gaftamayna waxaan jeclaa lahaa mar haddii xildhibaanadeena sharafta lahaa ee qaaliga ahaa ee guddoomiyaasheenna ay fadhiyaan ay nawceen ee guddiyadii kala duwan ay fadhiyaan hadalka lagu hadlayo hadalka meediga inuusan ku jirin aad u fiicnaa leh wixii baraha bulshada laga arkay inaysan ku jirin aad u fiicnaa leh anuu taliya ciidanka xooggaan ahay xerada hiil weyne weerar iyo ka dhaca lagu qabsada ma jirin laakiin waxaa jira xerada hiil weyne meel ka baxsan oo xaafado aheedoo askar ay deganeeday in nimanka cadawga ah oo ay soo weerareen xaafaday aheeday xero ma aysan ahayn xero meesha ay soo weerareen oo deegaankaas waxaa ku sugnaa dad shacaba iyo nin sargaal ah oo meesha deganaa iyo laba askari oo la socota xerada ciidankana ma aysan ahayn meeshaas waxaa ku dhintan 4 qofood oo shacaba iyo ninkii sargaalka ahaa laba askari oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna way ku dhaawacantay ayagana way joogaan xildhibaanadana waa nabad hadda inta ka sokaysay haday yiraahiin war ma hubanta waa wada waa geeyna waa guddoomiye laba iyo saddex afar waa la igu dari karaa waa soo tusina
meeshuu ka dhacayna marka taasna waxaan isleeyahay ayadana muxuu ahay ii sheegee sidaasay aheeday hil weyne xildhibaankayga qaaliga ah waxaa ii haray xildhibaan maxamuud sheekh run sheeg miya oo waa fiican tahabe waa aad u fiican xildhibaankayga qaaliga waa runtiis ninka sargaalka ah ee hadda uu ka hadaliyey horta waa gaashaan leh ma ahan horta kabtan anugu ninkaas hadduu kabtan darajo saxa kabtan hadduu yahay isku nin ma hayno laakiin hadduu ninkan anugu aqaano uu yahay oo danab laga soo bedelo waa gaashaan leh cabdiraxmaan cumar warsame sargaalka waa sax howlo fiican uu qabtay mas-uuliyaduu haaye xiluu haaye xilkuna waa meerto shalay meeluu joogay waa laga soo qaaday meel kale la geeyo waa laga qaaday maantana ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu ka tirsan yahay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay runtii xildhibaanada inta fadhiya kala barobar inay ciidan yihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu leeyahay buug la dhaho buugga dishibiliinka sargaal wala askari waxa lagu la dhaqmaayana halkaan ay ku cadda sareeye iyo ka sareeye buuggaan ay ku cadda waxaan rabaa marka arinta waxa soo xisaabi la yiri krisaastii oo howlgallada ku galay xildhibaankayga qaaliga ah haddaan mas-uuliyiinta dalka oo weliba hay-addan ay tahay hay-addii sharci dejinta waxa laga hadlaya aan realitiga dhabtaa laga sheegin oon run laga sheegin wax walba way qadibmayaan haddii aan leesla xisaabtamin oo adigu aadan nala xisaabtamina oo annaga inaad nala xisaabtantaan waxay ka imaan kartaa mas-uuliyadda noola dhiibay oo aad noo dhiibateen inaan annaguna aan kula xisaabtano cidda iska leheed laakiin haddii aad nagu qabsataan inaan kula xisaabtano oo dahdaan hebel see loo xiray askari hebel soo meel heblo u tegay hadda waxaa imaanaysa maxaad igula xisaabtamaysaan waxa dhow aad igula xisaabtamaysaan waxaa imaanaysa aniguna inaanan u helin runtii muxuu ahay ii sheegay jawaabaha saxda inaanan u helina igu dhacaysa sargaalka marka asiga ah mas-uuliyadu hayay waa laga soo qaado haddana waa reestaysan yahay sababta uu reestaysan yahana wuxuu leeyahay canaan wuxuu leeyahay ganaax wuxuu leeyahay reesto wuxuu leeyahay xabsi waxayna ku caddaha buuggan halkan yaal nidaamkaasaan u marnay xildhibaankayga qaaliga waa jeclaa lahaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa ognahay siyaasad oo iska qaab daran ama si kala ah inay iska jirto waa laga yaabaa iga raali noqda laakiin inaysan saameyn aadan u jeclaa lahaa haddii aan samayno inaan annaga ku xidgudubno qofna sida maanta baad noogu yeerteen noogu yeera qodobada cad oo kala xidgudubno noo soo bandhiga sharciguna waxa naga qabto waana ku qanacsanna arinta heedada lacaadaha xildhibaankayga qaaliga horta waxa horta aad nasiib daro waa inaad marna aad muxuu ahay ii sheegay sargaalka u doodo iga raali noqo xildhibaankayga ya waxaan nasiib daro marna inaad sargaalka u doodo marna aad haddana ku soo celiso tiraado dalacaduhu waxay ku baxaan qabyaalad xildhibaan adaa qabyaalada ka sheekaynaya maxaa dalacadan inay ku baxaan diiday waxaan rabaa marka xildhibaankayga qaaliga gudoomiye arinta keenta marka xildhibaan waa kaaga jawaaba waxaan jeclaa lahaa madaxdayda tahay ganaaxa xataa adigu waa igu dhufa kartaa adoon igu xanaaqin inaad waxaan laakiin aad u jeclaa lahaa xildhibaankayga qaaliga ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed procedure-ka iyo process-ka uu leeyahay arintan dalacaadaha aniga inta aan ka ogahay waxaan u marnaa system saddex arrimood ay ku timaadaa kow qofku inuu aleebi ka yimid oo kulliyad ka yimid labo in markaa uu yahay qof meerita ku dalacaaya oo mudnaan lagu dalacsiinayo saddex inuu yahay qof baahi ka jirta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dartiis lagu qaadanayo intaasoo sababood ayay ku timaadaa wixii ka dheeriyana waa wax naga dul imaanaya anigu waxa meeritadii galaysa waxan muxuu ay sheegay naga dul imaanayo kale anigu taas ma hay marka xildhibaankayga qaaliga tan dalacaadahana aniga inta aan ka ogahay waxa inta dheer xafiiska taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa yaala dhamaan waxa laala iyo wixii dalacaada loo soo jeedinayo iyo sida ay ku imaanayaan faylka marka la tago waxa yaala fayl la yiraahdo galka dalacaadaha waxaan aad u codsalahaa haddii ay jiraan guddiyo ku shaqale inay soo baxaan ayna weydiiyaan faylasha dalacaadaha
iyo sida ay ku yimaadiin iyo procedure-keeda iyo waxa ay yihiin hadday dad meel gaara laga keenan yihiin iyo haddii ay yihiin bahal laakiin arrintaan kuu soo qaatad xildhibaankayga ka xanaaqayso waxaa cajiib ugu noqotay inaad sargaalkiina eegaal hadasho darajana aad ka hadasho aniguna aan taliyo oo igu aamini weyso taas si kale ila noqoto aad iyo aad u mahadsantihiin